su-aasha adag ee u baahan qof kastoo bini aadam inuu isweydiiyaa waxay tahay famaada bacda almowt tan inaad ka tegaysa waad ogtay waana la hubaa hortaana dadkii soo maray waa ka wada tageen maxaa geerida ka dambeeya ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geerida ka baxsanaysaane ka ordaysaan waa idinla kulmaysa bini aadamku geerida ma jecla meel yari markay ku xanuunto xagga dhakhtarkaad u cararaysaa waxaad hanti haysatoo dhan baad ku bixinaysaa waxaasoo dhammina waa uun geerida bal haddaad dib u dhigi karta inaad dib u dhigto ama inuun inaad ka baxsato ilaahina wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum waa idinla kulmayaa geeridaasi maxaa ka dambeeya uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa ka dambeeya waxa weeye in rabbi lays hortaago kullu nafsin daa'iqatu almowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can annaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu addunya ilaa mataacu alguruur idan geerida waxa ka dambeeya waa alwuquufu bayna yaday illaahi subxaanahu wa tacaala ilahay inaad is hortaagto waxaa ka dambeeya waa ima aljanna wa ima annaar walidalik baa ilaahay wuxuu ina leeyahay aayaadkaynu mar kastaba akhrino yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun war ha dhimanina baa ilaahay ina leeyahay idinku aan muslim ahayn walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aadanuhu geerida wuu ka warwareegaa laakiin waxay yidhaahdaan aqrabu shayin huwa almowt waxa kuugu dhowi waa geeri abcad shayna bay yidhahdaan huwa alamal waa rajo iyo dadku waad sii noolaan doontaa arja shay fi lxayaana huwa alcamal waa waxaad shaqaysato wax loogu rajo badan yahay waa waxaad shaqaysato daba maxaa ka hortaagan bini aadamku xaqiiqada uu og yahay inuu u diyaargaroobo ulaha hiya alghafla waxaa koowaad ee inoo diidan inaynu diyaargarownaa waa alghafla waa dhoohani waa moogani waa adigoo alxaqaa'iq alkubraa ismoodmoodsiinaya raba inaanad xasuusanin adigoo aan rabin inaad aakhiro xasuusan adoo raba inaad janno iyo naar xasuusan saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun ilaahay wuxuu ina leeyahay dadka waxaa ku soo dhowaaday xisaabtoodii in lagu xisaabinayo maxaa lagaa xisaabinaya waa kastoo bariya daqiiqad kastoo ku soo martaa lagu xisaabinaya waxaad qiyaastaa waxaad soo noolayd waxaad soo qabatay waxaad soo jirtay waxaad ku soo fakartay waxaad ahaan jirtay waxaad qabatay oo rabbu samaawaati waalardi uu ku weydiinayo oo lagu yidhi weliba ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid qadamaa cabdin yowma alqiyaama ma dhaqaaqayaan ilaa yaa as'iladaa la weydiiye mooyaane ilaahayna wuxuuna leeyahay dadka xisaabtii way ku dhowday iyana waa ghaafiliin ma yatiihim min dikri min rabbihim muxdathin xagga rabbigooda ugama yimaado waano cusub oo ilaahay dhankiisa ka timi ilaahaya waxay maqlaan iyagoo weli cayaarta ku jira baa ilaahay leeyahay ila istamacuuhu wahum yalcabuun dhagahooda waxay soo gaadhaa iyagoo weli cayaaraya oo laahiyatan quluubuhum baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun idan ayuha alaxiba aafaadka ugu waaweyne keena inuu dadku diyaar noqon waayo keena dadku inuu aakhiro xasuusan waayo keena dadku inuu xabaasha arki kari waaya iyadoo dunida dadka hoose ka badan yahay dadka saaran magaalo kasta magaalada ka dhinac dhasan baa ka badan haddana bini aadamku inuu daaraha arkay xabaalaha arki kari waaya waa wax cajab qabta
waxa dhinacaaga ku jira ee dad jiifa inaad arki kari weydo ee daarta ay kuu muuqataa waa mashkilad yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun kuwa ilaahay ka gaaloobay baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay daahirka noloshay garanayaan baa ilaahay yidhi ama aakhira iyo xaggeeda waa ka moogan yihin waa dhoohan yihin sida awgeed ayaa axadu saalixiin ayuu boqorradii muslimiinta nin ka midii wuxuu ku yidhi limaada nakrahi ilmowt maxaanu geerida u nacnaa buu weydiiyey dabeetana wuxuu ku yidhi camartum addunya wakharabtum alaakhira watakhaafuna an takhrujuu min alcimaari ila alkharaab adduunkaa camirteen buu yidhi de shaqadiina shaqa adduun noqotay aakhirana waxba iskamaydaan horraysiinin marka waa logic buu leeyahay inaad nacdaan inaad meesha camiran ka tagtaan oo meelaan waxba idinka horrayn inaad qabataan waa nacaysaan buu ku yidhi ayuha alaxiba bini aadamka wuxuu noqday fakarkiisu fakar adduunka maxaan qabanayaa maxaan helayaa maxaa ii soo gelaya xataa wahuwa yusalli xataa markaynu salaada ku jirno 5 daqiiqo aynu ilaahay is hortaagno 5taana waxaynu xisaabinaynaa adduun oo caqligeenna ku jira bale qad naxlamu biha waa ku riyoona bini aadamku waxa agtiisa yaalluunbu ku riyoona haddaad riyooyinkii saxaabada dib ugu noqotee nebigu fasiri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subax markuu tukado ayuu wuxuu odhan jiray ma minkum ru'ya war xalay yaa wax arkay markaasay saxaabadu u sheegi jireen waxay arkeen dabeetana wuu u fasiri jiray riyooyinka haddaad dib ugu noqoto kutub alxadiid inta badan janno iyo naar iyo aakhire ka warramayaan inta ugu badan le wax diin ku saabsan bay ka warramayaan waa nimankii aadaanka ku riyooday ee kan ku riyooday kan ku riyooday aakhiro innaga laakiin riyooyinkeenna haddaynu iswaraysanno nidhahno war bal maxaa ku riyooteen waxay u badan tahay dhammaanteed inay adduuntay yacni qofku wuxuu mahmuum ku noqdo ayay ruuxdiisuna la tacaamushaa walidaalik ayaa waxay yaraaday waxaynu aakhira u qabsanayno waxaynu ula baxnay waxaynu fikir aakhira geysanay waxaynu waqti geysanay waxaynu hanti geysanay waxaynu beerannay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa gharsi alaakhira jannada beerteeda sida loo boorto subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar kuwan baa lagu beeraa beerta adduunka waynu ka fakarnaa lacag bay u baahantay waxan bay u baahantay inaynu beera samaysano adduun waa jecellay laakiin beeraha aakhiro guryaha adduun inaynu dhisno waa jecellay laakiin nebigu wuxuu tilmaamay aakhiro guryaheeda si loo dhiso walidaalika ayuha alaxiba ninkii muslimka ahaa ee caalimka ahaa baa waxaa la weydiiyey ninkii baa wuxuu yihi fama alcamal haddaa bal maxaanu qabanaa bal sheeg wuxuu ku yidhi naftaada ilaahay kitaabkiisa u bandhig ilaahay kitaabkiisa wuxuu leeyahay faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah boqorkii sulaymaan la odhan jiray warkan soomaalida oo kaleu markaa ninkii weydiiyey ayna raxmatullaahi buu yidhi dabeetana sheekhii wuxuu ugu jawaabay ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin waar ilaahay naxariistiisa dadka qusirsa buu leeyahay maada ilaahay naxariistiisii wuxuu yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi naxariista alle kuwa samaha sameeyay u dhowdahay idan ayuha alaxiba maxaa aakhiro haafilka inooga dhigay dhowr sababood baan tilmaami doonaa ta koowaad waa tuulu lamal waa amalka yididiilada iyo rajadaynu qabnoo dheer qof isla aroortaa naftu kaa baxaysaa miyuu inagu jiraa qof waliba wuxuu isleeyahay in shaa allah cumur madiida kollay waxoogaabaa hadhay dambood xagga dambe ka shaqaysato qof isla aroortaad dhiman ama barraad dhiman ama bisha soo socotaad dhiman ma jiro waxaynu iswada leenahay oo madaxeenna ku jira in shaa allah kollay waxa hadhay waxaad wax ku qabsato waa dambeeya ilaahayna wuxuu ina leeyahay innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban baa ilaah yidhi iyagu waxay u arkaan
aakhiro iyo qiyaamo iyo geeridii waxaa baciid mid fog annana waxay noogu muuqataa baa ilaahay leeyahay qariib mid aada u dhow sidaa awgeed baa kuwii gaala markuu alle ka warramaya wuxuu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun ilaahay markuu kuwa gaaleed ka warramayaa la yidhi iskaga tag nebi maxamedow ha cunaan oo ha bidhbidhsadaan oo ha ku raaxaystaan oo wayulhihim alamal rajada ha ku badadaashaan waxay sidhaa kollay dee cimriga fusxa ka hadhaye xagga dambe in shaa allahu tacaala ayaad wax ka qaban doontaa fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala imaam alghazaliy raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu leeyahay rajada dheeri amalkan dheeri iyo didiiladan fogi laba shay unbaa waa asala buu leeyahay aljahlu wa xubu dunya waxaa keena waa adduunyo jacayl oo qofku baasha dhadhankeeda iyo macaankeeda iyo ay la fiicnaato aakhiriya waxaa ka dambeeyana uu ilaabo ilaahayna wuxuu leeyahay bal aayaddan u fiirsado man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika laysa lahum fi alaakhirati ila annaar وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون إلهي وحلي من كان يريد نك أدون شعيل قاضه نك أدونكم مشغوليو وحيش أدون يهين إرادة الدنيا ما وحل وحري أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار كلا بدنا وجهلي وقفك جاهل كالنقطة واحد ضمبية وقفك جاهل كالنقطة حقيقة الدنيا وقال هذا فيلسوف هذا الشيخ تقار كم ده أيها وحي وأركين نولا شيء أنا وحبق قبرنين وايو وحلي دوان كتغية حي قيمة السمين السابولي الدنيا كلها عبث الفلسفة العبثية وحلين محان قبانية وحكستوان سمين سوبرين لمن ما يبولي دن وهنا نسكتها إياه وحيد أوردن واحد منهم هي إسلانتي سيدي لي بالليلي يضو فرح سن يضو قصة للسؤال كود دبا تنوض نوح جري ويدو قلي وفرانسيسكي فلسفي وقوينا فرانسيسكا وقت يوقس كان حكومي سنة وقبيب الدلي فلسفة الوجودية ما حد عيبها الليلي ولي بمركو الدلي ببولسك الله الله وحيوري waxaan dilay xaaskii markaa boolisku shaqadiisa ha qabsado waa la qabtay waa la maxaa dhacay waxaan arkay buu iyadoo faraxsan markaa waxaan sidii buu kollay dee halkan wax kale ma yaaliin iyadoo faraxsan oo ha ka tagto nothing else wax kaloo tan yaala ma jiraan ee laxdada ay faraxsantay kollayba hadday ka baxayso iyadoo faraxsan ha ka baxda baan sidii buu leeyahay ilaa madaxweynaha kayskii la gaadhsiiyey caqlu faransa la xidhi kari maayo baa la yidhi see la yeelaa waxay yidhahdeen musaxaadka caqliga iyo meelaha balaangeynaylan waa ceeb in la yidhahdo France baa xidhay caqligeedii waa wax ceebe waxaan uga dan leeyahay adduunka haddaad xaqiiqadiisa garan weydo kaasi xaqiiqatu dunya wuu gartay laakiin xaqiiqatul aakhira buu garan waayey ma bacda almowt buu garan waayey adduunku wax laysku mashquuliyo inaanay ahayn wuu gartay wax weyn inaanay ahayn laakiin wuxuu garan waayey famaa bacdaha maxaa ka dambeeya أيها الأحبة فرق باور حياة أملك هي الرجدة هي الطمع بين هذا في اللغة العربية أملك واحد هذا وماشى آد أدركسن يعني ترجينا إن تهرو قاعدو طمعنا وهو ماشى قريب كأبين هذا أنا مركبات سلادي وتقارس رجدنا وماشى دحدحات كأبين هذا نبي إبراهيم مركو إلهي وحاكتي سيال له ونقريني يمحلها والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلهي قاعد يسوي حكو جرا ووحل الرجايو ووحل طمعه دبا أيها الأحبة أملكو هنا تستلهد اللي من ميس هنا تستلهد وقت باقوها رينا سوا حكينا وإما الجهل وإما حب الدنيا بين هذا وجاهل لمه أما الدنيا شعيل
labada tanna nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo furaash yar ku jiifa salli oo salligii uu ku yaallo calaamadiisii salliga markaad ku seexato adigoo feedha qaawan waxaa kugu sawirmaya xariijimaha salligu uu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaas oo salli intuu ku seexday salligii uu ku sawiran yahay calaamadihiisii adduun salluu kaga jiifaa maaha inuu adduun waayey saxaabadu iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhti aanay waxaysanin iyo wakhti ay waxaysteen labaduba waa soo maray laakiin adduunkan marnaba qalbigooda gelin ee gacantooda ku jiray walidaalika buu cumar wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah low ittakhadta furaashan awfara min haada maad furaash yaroo kan ka fiican yeelatid xadiidka ibnu xibbaan baa warinaya sheekh alalbaanina xasanun saxiix buu ku tilmaamaya yaa cumar maa lii waliddunya wamaa liddunya walii والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صاف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها النبي يقول عليه الصلاة والسلام عمرو أنا إيا أدون محانا قد حيا أدون يا نقا محانا قد حيا إلها نفتيدو قعنتي سكوتشرتان كل دارتي أدون ميو يهيبا تسالهيسو nin socota ah oo maalin xagaaya socda oo geed hadhsaday saacad geed hadhsadoo dabeetana ka tegey kaas caqligiisa haddaad adiguba iska soo qaaddood socoto ahaan lahayd oo cadceedda kugu kulaato oo aad geed istiraada hadhso maxaad ka fekeri lahayd ma daara ka dhiso ma furshaan dhigdhigo maxaad ka fekeri lahayd caqliyadda kuwan adduunka jecel waa la daba qaadaa furshaanta iyo wax oo dhan oo dee taambugi iyo furshaan iyo waxbaa loo dhisaa laakiin alinsaan alfitriy bini aadamka caadiga ah dadka maanta dunida jooga qaar baa jira daara intay dhistaan hal habeen sanadkii u hoyda laakiin bini aadamka fitradiisii aanay xumaanin wuxuu u fakaraa okay waa isku mid inaad dhinaca dhigto iyo inaad salli dhigato iyo inaad iska yara jiifsato sidasay mar haddaad saacad kadib aad ka kacaysay ihtimaam badan ma siiyo geedku saacad hoos joogayo siduu u hoos joogayo wuxuu nabigu leeyahay anigii adduun saasaanu isku nahay rajadan dheer ee bini aadamku iska dhaadhiciyna sideedaba qur-aanka marka la joogo waa madmuum afarayta in matacnaahum siniin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كورن با إلهي لي دتكن هدانو الرحينا سنده لو بديو لكن هو يما دمركا وحي لو يبو هينا وكدنبيو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون با إلهي كتلمامية ولا تجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يهود با إلهي كورمية إيجا كوا مشركين تبا وحي جعليه كن سنة ضد دي عمري سقفك لغا ديق لها حتى هدي كن لغا ديق با إلهي لي ما كن بكاعل النار وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلهي وحين المام يا سبحانه وتعالى هو مؤمنين تايميا وقت أني قاعدين قلوب تودو أي خشوع دبا إلهي ذكر جيس يوحى حق لسودة شيء خشوعان وأنا لم نقنن با إلهي كوي كتاب كالسيي وفطال عليهم الأمد وقتigu uu ku dheeraaday dabeetana waqtigii loo dheereeyay qalbiyeenka ka qaaday ayuha alahibba adduunka istirsaal al-aamal al-mulhiya an taa'ati rabb al-alamin ma huwa banaan ولذلك لكن وما لها لا ينقو يتحامي نبي حلي عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام كما الزول أيه قلبك قفك ويني لبا ولي وكرنا لن يرى
يعني دادا دون تقعد لحدا تضبات السديت انت دون تقعد قفك وين قلبك الله بشي وكرد اللي يرى ابو النبي ويلي ولا بديه وحب الدنيا يطول الامل الدنيا جعلك لقى ما قبوبه قفك سكستو قبو سيها دونك وجعلي رجدنا الله مردقه املك وحبا هري داد سقاشن جرتا وحبا هري ومبات سلادي حق الضنبه أي أنت هذا الحقوق أبصر لها يتشرتها. أيها الأحبة الأمل في الدنيا مهلك والأمل في الآخرة الرحمة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن أيها الأحبة رجدوا وين كوبناتا نبي عليه الصلاة والسلام خط جاحي سيابا بدن بيوص الصوران علماء خط مربعة سكوير أفرقيس له دبيت أنا حريق روح دح صار حريق ذاك على حريق جمو ويالي دبيت النبي وحولي كاسوا بنا آدم كي كاسنا وأجشيسي سكوير كان صارني أمل كيسونا وكا كسي بحسن بولي وحرق ذا كسي بحسن سكوير كير. وهذه الخطوط الصغار الأعراض خطوط يريد العيادة وبحضينا ومشكلات كان كل بها ليلة فإن أخطأوا هذا نهشه هذا دات كان كبد بعد كان باكو قدعي دات كان كبد بعد كان باكو قدعي إلى أي مركة ودم بيسه نفط الله قابته محا حلقة حلكو حويا أملك جوج أو محي سمي استعد ليوم القيامة أو ليوم الآخرة أو للموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نندل يرى دي كم من الصحابة أيو قرب كغبط ونندل يرى عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهذا يرى في مقتبل عمره كجرة بل وحين نقالنا إنت قال دي كوادي الله قريبي وليدا دو عرباتي قلي ميسيد بدر يملا دقال دي كوادي الله قريبي أحد نبي يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وضي لما حضنا يا نبي محمد إنا يربو الله الله إنك يرى يولي هدي وحكوي للنبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أدون كم واحد كوا هاتا سيدي إن غريبة سترينج بقالة صوغري أو عابر السبيل أما مد شتك قد باية كوا هو سقوا ويلي عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيو يسوون وحورن شري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أرق ويل كاسي سيدا ويلي وركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيفي عن بو فهمي مركاسا إساقنا التلديسي وحي نغطي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هداد قلبي سطو واغا برقي ساسوين كهرين هدي من دون تقو تلقل وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هداد مطانا هداد يعني وابري ستنقل بنمها سوين نبي عليه الصلاة والسلام حوين الضاي حديث كمرك الله صيحنا يا وحلا يدا هذه مرك الله سوكع يا وحلا يدا مرك تسي صيحنا سنة وحلو بري إن تسي تراده إله نفطن هداد قبطه ونهريسو يعني واحد كنت لقى لي ساين أنا يسوى ذا كعدونين ولذلك وردي وحلا قاعد جاينه كوه هذا مرك تشيف سنة يسوى آخر حسوس تديني وردي كوه هذا أمل كأنه تشوتشيسو ودي له يكبر يسوع سبحانه وتعالى إلى وهدان تسوع للنفطة نهو نحرسه هذا تسوع دبوا سوع لندونتنا إلهي وحدكو إلى لسه تتك الصالحين تا وحدكو إلى لسه مركز وابريستنا محيدا بالوجود وحمهات سكاله إلهي جريد بدي سوكعي يعني كان سبال يسيه قفله ويان مركو سيحان يي كان سكامو هو ودردارما مركو واقو بريينه wuxuu ku faraxsay in rabbigii jaan siiyay oo ilaahay wuxuu ku mahadinayaa in la siiyay nolol geeri dabadeed sida awgeed ayuha alhibba Abdullah ibn Abbas baan ninku yiri ila tali dabeetana ninkii isagoo waaninaya wuxuu ku yiri
اغتنم 5 قبل 5 شن هرتود كغري ميسو وما انت أضل يرضى تيددال وجيريها سوي قبوها سوي dadku waxay siraadaan xagga dambaad wax ka qaban doontaa war xagga dambe tamartu way dhamaataa mahma aad aqliyaysato aqligu waxba ma toro hadaanu awoodi fulinaysa jirin awoodi waxay joogtaa intaad dhalinta tahay baad wax qaban kartaa markaad gabowdo aqligaagu kori laakiin tamari ma jirto idan wax qabadku xagga horu jira sida ogeed buu ibn Abbas wuxuu ku leeyahay ninka kan dhallinyaranimadaada qaniimayso waxaad taaca iyo cibaado iyo khayr samaysan karta intaad dhallinta yar tahay samee intaanad gaboobin wasixatika qabla saqamik inta aad caafimaad qabto xagga dambe haddaad xanuunsato dee tamar dhigtayana waxaad wax qabsan kartaa waa maxay waa intaad caafimaadka qabto waqinaaka qabla faqrik intaad waxaysato intaanad faqrinin bini aadamku inta uu qaniga yahay ugu shaxiixnimo badan yahay waayo waa intuu ugu programka badan yahay markastoo shilin ku kordhaba programmadaada badanaya saa daraadeed baahidaadaaba tira badanaysa xogaaga yar markaad haysatay programkaagu uu yar yahay waxa laga yaabaa waxaad haysato dhan aad bixin karto wax ka bixin kartid ibn Abbas wuxuu leeyahay isagoo xadiidka nabiga u tilmaamaya qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rajul wa huwa ya'idu qinaagaaga markaad wax haysato wax la bax intaad faqrinin wa firaaqaka qabla shughlik firaaqada intaad tay ninku intuu dhalinyarada yahay buu waqtigiisa leeyahay markastoo aad sii weynaato waqtigaaga waa lagu la yeelanaya bulshada kula yeelanaysa qaraabada kula yeelanaysa asxaabta kula yeelanaysa saaka markaad soo kacdo adiga xagga u socday xaggaasay ku kaxaynayaan markaad si dhalinyarada tahay xidhiidhkaaga bulshadoo dhan uu kooban yahay laba saaxiibatiin oo warbar saaka iska waran xagaad maraysaad ku tiraado ayaad wax xidhiidha leedahay xidhiidh kale ma lihid walidalik waa inuu waqtigaagu juhdiisu bedelaa waa inuu camal noqdaa firaaqadii baad haysataay ka faa'iidayso وحياتك قبل موتك بنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة أمل كداري وحرفة الشيطان هدتك كهلاك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم بهالكي لك قال هلك صحيح نبي آدم حاجة نظر لك صار وكل ما كنت سيجيت كوارتانك شجرة الخلد هو ملك لا يبلى إمسا الشيطان لميي وقضية كل لميي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم بإلهير شيطان باوحو تسويل السمي وحم مهدي وحو دلاليي أمل ييد الديلين وقلي أمل كعلاج كسوا محي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث ابن أبي الدنيا صار الشيخ الألباني حسن كنت المامي وحلي إن شاء الله وحينا حديث شاقنينا صحيح حسن بين شاقن نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل نبي حلي عليه الصلاة والسلام ومدن دتك يدي هوري وحي كو قوليستين كل ليبانين كو بدبادين يقين قلبي قود دكتي هي الزهدي زهدي وين نحب الدنيا قلبي قاعدين زهدي وما هينا فقيرته زهدي وحويان وين الدنك جعلانين هذوك سوق لك عن هذا كجرو سأوجد النبي حلي عليه الصلاة والسلام وباليقين هي بالزهد قوة ضمبنا وحي كهلاك سميا بالنبي يقولي بالبخل والأمل دعنا ضيقيه هي الرجو أمل بدني حديث كيكو يا لي رياض الصالحين ترمذي ابن ماجه وريان كستو الشيخ الألباني سوى ورنا يوا ضعيف لكن علماء كلاي حسن يوحب الشيخيان الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. إذن أيها الأحبة غفلة وينو كبحا قفك الربين آخره وديار كروبة أمل كدير وينو كبحا تمنياتك أمنيته إما إن وح مستحيلة تمنيس أما وح بعيد المنالة أي أمنية الله إله الله بدأ القرآن كإلهي وقت المام مستحيل قوام حي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وشيء مستحيلة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وبعيد المنال كيف شيء هذا أمنية لفتيته الأماني أنا تكرر يطول أمانته أنت بدن والرياضة سوتشيتك qofku markuu seexdana wuu riyoodaa day dreaming ka waxna yiraahdaan adigoo soconaya madaxaagu inta uu shaqeynaya waxba ka buuxa waxa ka buuxa in badan oo kamidi waa khuraafa waa waxaan jirin in badan oo kamidi waxa laga yaabaa khayaalaadka carruurta kale inay weegihiin daysaana dhiclaado saana dhiclaado waxan baad sameeyay dalkan baad ka bixina waxaas madaxu ku sheekeynaya qofku markuu soconayo in badan ina run maaha iyana waa farsamada shaydaanka oo shaydaan markuu ku ballan qaaday waxaan luminayaa in badan oo dadka ka mid ah muxuu yidhi wala udillannahum wala umanniyannahum wala aamurannahum ilaahayna wuxuu ku gabay yaciduhum wa yumanniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruura wuxuu ku ballan qaaday waan lumin buu yidhi oo umniya yidi diiladaas iyo riyadaasaan u samayn buu leeyahy dabeetana waxyaabahaasaan fari doonaa إلهي وحينو تلمامي كو مركو قارون حوله سي صوبرني قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم كوي علمي قال السيا إلهي وحينو هذين وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قلبا وحبا لقيم له قلنا حولها سالقيم له نكاسي وطو قلنا وحا لقيم له محي آخره يعملك صالحا هذا أماني وحما ما ترتو آخر عمل بالوغ ديار قروبة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إلهي وحلي أماني دي نماها يتأهل كتابك مدنبا هو عمل آخر السعي شقى لوغو ديار قروبة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عدي آخر دونسة عدي أدونك دونسة وإنك سوامرنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أولئك بين سوامرنا ليس لهم آخرين أنا وحوالها هين عذاب مويان أما آخر قوة دوني أنا وقوة كان إرادة الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها إرادة قرما هي وسعى لها سعيها سعي قارب إلى هذا خلاص له والشرع وافق سنة وقارة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن أيها الأحبة نبي محمد عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني حسن كوكوت المامي سنة كيسة وحصام ري حبال دبتنا وحولي من صاحب هذا القبر مرحبا شان يا كجرة واحد هذين فلان هبل با كجرة دبتنا وحولي رقعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم كحبا شان كجرة ما أنت صو ماركتان لبا رقعدود صلاة أيو وحا أدون هيستان ودنك جعلي ما أنت إمي كمركي من هل كان شوقنا لبا رقعدود مين أدونك جعلي سنقول بين أدون بدن يسوق على أبو علي رقعتها إن لا خليفة إن خفيفة إن لا فضل هذا وحين سويديننا شاف صلاة دي سنة يوحكك عليه فرلكي هي شغادي بيسقبن ويا محل يليا marka wadaadka waxa la rabaa inuu fatwoodo oo keeno si salaada loo fudaydin karo ay meesha uga baxdo shaqadu ay u noqoto noloshu waxaan ka maarmaynin nabiguna kaleey salaatu wasalaam to xabaal soo dul maray ayuu wuxuu leeyahay ka xabaasha ku jira
ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم كان حباشة كجرة لبا ركعدود با أدون وحا هيستان ودن ما أنت أكتيس لقى جعيل بدني على علكم مرنا بوحمة ترى يا ليتني قدمت لحياتي حبكوا تاري ميسو رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلهي وحو قرآن كينو قلت المامية بري إنينو حقوق فكرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وركوا إيمانك لغاها ليا والله كعب صدبا إلهي تقوى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد با إلهي naf waliba ha eegto berri waxay u horumarsatay habeenkii markaad seexanayso bal xisaabtan waa waxaad isweydiisaa war haddaad caawa naftu kaa baxda maxaa kaa horeeya وإلهي حين لي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إن كانت هدوا على لو أن لي كرة فأكون من المحسنين إن كانت دورني أدوك نوبهن إذن أيها الأحبة قرآنك مجرو بيج قرآنك كم دبان فيليا وأنا لما قضيضود مدونكو أركيني ولا بدا مسألة وغبضا إلهي كتاب كيسو كهدلا إننا ولا بدا وغيرين كهدلا قرآنكو إما إلهي بوك ورميا صفينيا وإما الآخرة ولا بدا قضيضود وغبضا إلهي كتاب كيسو بكو يالا قرآنك اللحظة بقول يا فرتبيتش أولي لبدا قضيضود وغترا بدان لو كورميا إما إلهي وينديس كورميا هي صفات كيسة هي عظمديس هي حس كيسة أما سوحو كورميا مال انت آخرة هي خطرت هي الجنة هي النار هي أوصاف هي وحكجرة هي قيامها هي أهواشيس هي قاري هي وحي كدنبايا لبدا قضيضود باو بدان وحو قرآن كورمو آدان هنا واللبدا أغير وحو كهدله بن آدم هنا وحو كهدله واللبدا أغير markaynu isu nimaadno intaynu ilaahay ka warranaa iyo xuskiisa iyo dikrigiisa markaynu isu nimaadno intaynu aakhiro iyo waxa jira ka warranaa waa labada ugu yarayna waynu ka hadalno xataa mac wadaadada ku dar adduunka iyo si loo guulaysan lahaa iyo gaalka si laysaga celin lahaa baaba madaxa wareerisay laakiin aakhiro iyo rabbi waa labada quraanka makiga oo inta ugu badan ay ka waramayaan waa labadii nabi maxamed dadka ku tarbiyay waa labadii rijaalka soo saaray labada haduu aadanuhu ka dhismo aakhira wuu diyaar garoobaya qofka bini'aadamkii fahmo ilaahay iyo weynidiisa subhanahu wa ta'ala iyo xuska wa xaq uu leeyahay cadamadiisa iyo haduu garto inuu surtaagi doono oo uu xisaabin doono oo maalin ay jirto rabbiga aad hortagayso ku xisaabtamaysa waa diyaar garoobaysa maanta qolada ardada ah marka la yiraahdo usbuuca dambe waa imtixaankii maxay yeeshaan masaxataan ma istiraadaan insha Allah waad naragaato waad gudbi doonta yani waxaad warwar baad bilowdaa fakadalik qofka mu'minka ah wuxuu ogyahay imtixaan inuu ku jiro hadda beejkiisa inaad qorayso وبريو كستا ووراق امتحانه لغو ديبي وكستو كو بريا ووراق عصوبة امتحانه لغو ديبي وواحد كو قريسا اما النار يكو قينيان اما الجنة يكو قينيان كان كسو كوبي يا مركا هذا الكوينو كوبنا هذا بابا روني آخرانو ديار قرون إلهينا قرآن كإن بدن بينو كفريا إنو ديار قروني آخرانو ديار قرونو وحينون نمدو لان آخرة بأغين ولذلك بينو جيديك كدرسن انت كفكرين بينو كفكر مركا سي شغل الله هلا سي جعل الله دغتا سي دار لو دستا سي غورغا لو يبسدا سي غادي لو يبسدا انت يو كفكرين